kadib booga laga qoray arrintaasi oo ay soo bandhigeen wariyaal qaabilsan warbixinta dabagalka wararka iyo xogaha oo ka tirsan jariirada The Washington Post. waxa ayna arrintani dhacday kadib doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka taasi oo Donald Trump looga guuleystay islamarkaana uu xilligaasi diidanaa inuu aqbalo natiijadii ka soo baxday doorashada ka dhacday dalkaasi Mareykanka. waxaa ninkaasi lagu eedeeyay in generaalka Shiinaha uu sheegay in xaaladdu ay degan tahay waxa uuna u xaqiijiyay in Mareykanku uusan wax weerar ku soo qaadi doonin dalka Shiinaha. haddii tallaabadaasi ay qaadi lahaayeen Shiinuhu waxa uu mar kale soo jeedin lahaa digniino ayaa lagu yidhi qayb ka mid ah boogaasi. sida ku xusan booga General Milley ayaa shaqaalihiisa u sheegay in haddii Donald Trump uu amar ku bixiyo in gantaal nuclear lagu weeraro dalka Shiinaha in marka hore isaga uu xaqiijin doono arrintaasi. Donald Trump waxa uu ku eedeeyay General Milley inuu galay khiyaano qaran iyo inuu jeediyay hadalla been abuura. boogan oo lagu magacaabo peril ama khatartii waxaa lagu sheegay in wixii ka dambeeyay dibadbaxyadii 6 January in General Milley oo ahaa madaxii shaqaalaha isku dhafka ah inuu si dhab ah u hubay in Trump ay la soo daristay xaalad maskaxeed oo aad u xun taasi oo ka soo gaadhay walwal uu ka qaaday doorashadii looga guuleystay. sida booga ku xusan General Milley waxa uu walwal ka qabay in Donald Trump uu damiir la'aan noqdo islamarkaana uu aqalka cad ee White House-ka ku soo laabto. weligaa ma ogaan kartid waxa ay tahay arrintan madaxweynaha kicinaysa ayuu yidhi Milley oo la hadlayay shaqaalaha sare. waa sida boogaasi lagu qoray. General Milley waxa uu qabtay kulan aan caadi ahayn oo si sir ah uga dhacay xafiiska Pentagon-ka bishii January 8 si uu dib eegis ugu sameeyo hanaanka tallaabada military sida qaadida weerarada nuclear-ka ah ee dowladda Mareykanku ay doonayso inay fuliso. isagoo la hadlayay saraakiisha military ee madaxda ka ah xarunta Pentagon-ka ee qaranka ee maamulka Washington ayuu General Milley faray inuusan qofna ka amar qaadan karin madaxweyne Donald Trump isaga la'aantiisa. wax kasta oo la idiin sheego waxaad raacaysan hanaanka amniga qayb ayaanan ka ahaan doonaa ayuu sheegay saraakiishii shirkaasi ku jirtay General Milley. Marco Rubio oo sargaal sare ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku baaqay in madaxweyne Joe Biden uu shaqada ka cayriyo generaalkani. Arbacadii la soo dhaafay xogayaha aqalka sare ee maamulka Washington ayaa sheegtay in madaxweynuhu kalsooni buuxda ku qabo hoggaanka iyo daljacaylka uu muujiyay General Milley. waxa ayna intaasi ku dartay in uu sii wadan doono shaqooyinkiisa caadiga. dhinaca kale isuduwihii ama directorkii guud ee hay'adda qaranka ee amniga ama sirdoonka dalkaasi Mareykanka ee CIA Leon Panetta ayaa sheegay in General Milley sameeyay tallaabo bogaadin mudan islamarkaana waxaad loogu farxo. bulshada dalka Mareykanku waxa ay qarka u saarayd xaaladda aan la saadaalin karin waxaana xilligaasi xafiiska aqalka cad joogay madaxweyne aan adeecsanayn dastuurka qaranka isaga oo diiday natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday dalka islamarkaana amray dibadbaxyo dhibaatooyin iyo rabshado watay kuwaasi oo galaaftay nolosha muwaadiniin u dhashay dalkani Mareykanka. General Milley waxa uu haystay sharciyada inuu ka hortago tallaabo khaldan oo uu qaado madaxweyne Donald Trump oo u muuqday shakhsi qariska tuura islamarkaana u dhaqmayay habka talisnimo. wariyaha caanka Bob Wood ayaa waxa uu sheegay in sanadkii ugu dambeeyay madaxweyne Donald Trump Mareykanka u badalay goob aan sharci ka jirin. generaalkan oo buuga uu qoray uu muran xoog la dhaliyay ayaa la sheegay in 28 bishani September uu hortagi doono golaha Kongareeska ee dalka Mareykanka isaga oo su'aalo laga weydiin doono waxa uu koog yahay tallaabooyinkii khaldanaa ee uu qaaday madaxweyne Donald Trump.
saraakiisha ugu sareysa xisbiga jamhuuriga ayaa ilaa iyo hadda si weyn u dhaleeceeyay iyagoo qaarkood ay ku baaqeen in xabsi la dhigo islamarkaana shaqada laga caydiyo General McCamiley. dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in Nancy Pelosi oo ahayd afhayeenkii golaha Koongareeska ay amar ku bixisay in General McCamiley uu la wareego koodhadhka hubka nuclearka islamarkaana aan loo ogolaanin in madaxweyne Donald Trump uu wax luga ku yeesho. madaxweynihii hore dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa General McCamiley ku sheegay inuu yahay hogaamiye aan lahayn karti islamarkaana kharbadaad iyo dhibaato geliyay dalka Mareykanka. waxa uu ku eedeeyay in ka bixitaankii ciidamada dalka Mareykanka ee wadanka Afghanistan uu door ku lahaa isagoo oo burburiyay ama dalka Afghanistan uga soo cararay agab military oo qiyaas ahaan ka badan $85 bilyan.